maamulka sare dugsiyada Nuuraddiin ayaa dugsiga wiilasha ee magaalada Hargeysa maanta munaasabad ugu qabtay laba arday oo hindisay marooxad iyo gaari ay sameeyeen oo ay soo bandhigeen waxaana labadaasi arday ay wax ka bartaan fasalka labaad ee dugsiyada sare Nuuraddiin labadani arday ayaa magacyadooda waxa la kala yiraahdaa Rudwaan Cabdi Guuleed iyo Muxiyadiin Cumar Xuseen qaar kamida macallimiinta wax ka bara dugsiga sare wiilasha ee Nuuraddiin oo iyagu ka hadlay munaasabadani ayaa waxay sheegeen in ikhtiraacka ardaydu ay sameeyeen uu ku yimi dadaalka maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Ismaaciil Cakuush oo maamulaha dugsiyada sare Nuuraddiin waxa uu sheegay in maamulku uu dhiirigelinayo ardaydani waxaan ku rajaynaynaa insha Allah ta'ala ka iskuul ahaan inaanu anaguna garab istaagno oo aanu investment ku sameeyno oo aanu fikradooda horumarino insha Allah ta'ala oo ay halka ka sii wadaan ka sii develop gareeyaan Mahad Maxamed Ibrahim maamulaha guud ee dugsiyada Nuuraddiin waxa uu sheegay in talaabadani ay tahay mid muhiim ah isagoo sheegay in taasi ay ugu wacan tahay tayada waxbarashada ee dugsiyada Nuuraddiin oo ah mid uu heerkeedu sareeyo oo Suudaaniya oo maalmo dhaweyta sameeyay saacad oo waliba daadiina ama ka sii yara imse jir buu ahaa 14 jir wadaadiina age-kiinaas inaguna insha Allah ta'ala waxaynu soo bandhigaynaa mawhibada iyo cilmiga iyo aqoontu hadba waa intii Ilaahay bixiyo marka waxaan adduunyada ka jireen rag baa sameeyay waad maqasheen ninka sameeyay guluubka ama laambada waxay sheegaan 900 iyo 9 jeer ayuu ku gafay oo garan waayay oo ku celiyay markumaadkii ayuu hagaagtay wuxuu yiri waxaan bartay 900 iyo 9 jeer oo qaladka lagaga badbaado wuxuu og yahay failure teaches you success guul daradu waxay ku bartaa guusha waxa laga yaabaa inamada imanka ninna baabuurka sameeyay ninna marwaxada sameeyay ayaa laga yaabaa inay meel sare gaadhaan ardayga sameeyay gaarigu waa Ridwaan Cabdi Guuleed oo fasalka labaad ee ah ardayga sameeyay marwaxadu waa Muxiyadiin Cumar Xuseen oo isaguna isla fasalka 2 ah labadani arday oo la hadlay telefishinka Home Cable waxay sheegeen inay rajaynayaan inay hore u mariyaan ikhtiraacka ay sameeyeen